qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa si adag uga soo horjeestay guddi ay ku dhawaaqday 18 bishan hogaanka sare ee ururka Solja taasi oo ay ugu magac dareen badqabka saxafiyiinta wariyayaashan ayaa ku tilmaamay guddidaasi mid xukuumaddu dabada ka riixayso isla markaasna lagu caburinayo laguna wiiqayo shaqada maalinlaha ah ee warbaahinta waxaanay hogaanka sare ee ururka Solja u soo jeediyeen inay marin habaabinta ka daayaan warbaahinta madaxa bannaan hal xaaraani nidig xalaal ma dhasho waxaan safiih lagu doortay baynu garanaynaa si loo doortay jujuubka iyo ahayd qasabka iyo boobka baynu ogeyn maanta way naga arkayna midhaheedii maanta waxay samaysay Solja guddi bay samaysay guddigaasna kama mid aha saxaafadda madaxa bannaan Solja waxay noqotay meesha lagu shirqoolo saxaafadda meesha lagu dhabarjabiyay saxaafadda meesha laga soo maleego maamuraadka iyo hadimooyinka loo geysanayo warbaahinta madaxa bannaan xubnaha uu magacaabay waxay ahayd ama sax ha ahaadaan ama khalad ha ahaadaan in saxafiyiinta ururka waxa iskala saxafiyiin baa leh laakiin institutionadu ma laha waxay inuu saxafiyiinta ka talageliyo oo qof kasta deegaan kasta baa joogo in horta iyaga laga talageliyo maxay ka yeelaan maxay laakiin hadii waxaan muxuu haayeen ay deen noqoto in oo wuxuu haayeen midku waxay u muuqataa marka in lagu caburinayo saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo joogan waxaan u baahan yihiin saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo ay hadda joogan gurmad miyahoodu uu kaga dhawaaqay guddi loogu magac daray guddida ilaalinta badqabka saxaafadda Soomaaliland guddidaas oo ka kooban 7 xubnood ka kala socda wasaaradda warfaafinta xubno lagu sheegay inay matalayaan Solja oo iyaga laftoodu shaqaale dawladeed ah iyo xubno kaga jira ururada bulshada rayidka guddidaas marka la isku soo ururiyo labada xubnood ee kaga jira ururka Solja waa xubin ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waliba saraakiisha sarsare ee qalabka warbaahinta dawladda maamula ee guddida gacan ku rimiska ah ee ay sameeyeen kooxda wehelinaysa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo aanu aragnay in ka soo horjeedaan danihii saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland isla markaasna aan ahayn kuwa hadda saxaafaddu u baahan tahay waxay ugu maqaalaa ka luqmaan ahaan inaan guddidaasi ku jirin xubno madax bannaan oo saxafiyiinta madaxa bannaan ka socda laakiin ay yihiin xubno Solja ay urursatay iyo xukuumadda cidda wax tafatiraysa in la isla fahmaya fiican ee tafatiraysa wararka iyo waxyaabaha warbaahinta jidaysan oo laba taay ka cabato warbaahinta Soomaaliland dhibaatada badan ku haysa sidee u tafatiri kartaa wararka iyo barnaamijyada ay soo saarayso warbaahinta madaxa bannaan ay maanta ka soo saareen guddiga la magacaabay guddigan wuxuu ka dhashay casuumad wasaaradda warfaafinta casuumtoon boardka Solja kadib waxa isku qanciyeen in ay loo maareeyo warbaahinta madaxa bannaan in guddi ay si fudud loo sameeyo loogu jeedin jiray Solja ayuunbaad moodaa maanta inay ka marxaad furtay guddidan dawladda ka kooban ee wasaaradda warfaafinta ku ururtay ee haddana la leeyahay waxa ay kormeeraysaa saxaafaddii madaxa bannaanayd la magacaabay 3 cisho ka hor iyo cabashooyinkii hore Solja laga qabay ayaad moodaa inay maanta isku marxaad fureen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja iyagoo sheegaya inay matalayaan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland inay soo saareen guddi ay ugu magac dareen guddida ilaalinta badqabka suxufiga taasoo macnaheedu la tarkeedu macnaha noqonaya suxufiga badqabka suxufiga ayaaba su'aal isweydiinaa leh ujeedka hadalkooduna wuxuu ahaa oo ay raggii hore dhameeyeen guddida dabaka dhiibka maalintii dhaweyd hoteelka Ambassador lagaga dhawaaqay ee badqabka saxaafadda inuu ururkii Solja noqdo mid hoggaan u noqda oo hormood u noqda dhiilka dulmiga warbaahinta madaxa bannaan adna maanta guddidan cusub ee wuxuu tawato ha ku yeefurin Soomaaliland maanta waxay baantay saxaafadda in la mideeyo baantay ma baahna in ida la gowraco waxa lagu dhawaaqay dhawaan guddi la sheegay inay yihiin guddiga badqabka saxaafadda annagu uma aragno inay yihiin guddi ka shaqayn doonta guddiga saxaafadda badqabka inay guddi waxaan la garanayn ka shaqayn doonta inay yihiin baan u aragnaa Ahmed Nuur Ciise Mohamed Bulsho TV Hargeysa